kadib markii dowladda Turkigu ay dah qaaday diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Bayraktar TB2 guulo waaweyn oo la taaban karo ayay ka gaareen saaxadda dagaaladii ay ka qayb qaateen duulimaadyadaas diyaaradeed sidoo kalena Turkiga waxaa laga saaray barnaamijka diyaaradaha ee jiilka shanaad ee F-35 shirkadda Bayraktar waxa ay hore u soo saartay TB2 waxa ay hadda daaha ka rogtay inay horumarin ku wado soo saaridda jiilka lixaad ee diyaaradaha dagaal taas oo lagu wado inay la wareegto dhanka mustaqbalka dagaalada hawada ee dunida iyo waliba saaxadda waddanka Turkiga shirkadda Bayraktar ayaa talaadadii shaaca ka qaaday barta ay Twitter-ka ay ku leedahayna waa ay ku baahisay inay dhammaystireen haatan naqshadda mashruuca diyaaradda oo ay ugu magac dareen Mouse waana jiilka lixaad ee diyaaradaha dagaal shacka qaadisa shirkadda ee diyaaradan casriga ah waxa ay daba socotay muuqaal yar oo ay bartooda Twitter-ka soo galiyeen 17kii bishii July ee hadda socota ayagoo muuqaalkaasi ku tilmaamay in maalinta ciidda ay tahay hadiyad khaas oo ay ugu talagaleen waana diyaaradda oo ay sheegeen inay tahay mid weyn oo saameyn badan ku yeelan doonta saaxadda dagaalka bilowga sheekada markii Turkiga laga saaray barnaamijka diyaaradaha F-35 ee Mareykanka sababtuna ahay soo iibsashadoodii ku aadaneed gantaalada difaaca Ruushka ee S-400 kadib markii ay Giriigu iibsadeen diyaaradaha dagaalka ee Rafale kuwaas oo Faransiisku sameeyo sidoo kale haatan waxay isku dayayaan inay helaan diyaaradaha F-35 xilli mandiqada oo dhan ay ka socoto ishubayn iyo loolanka helista hubka noocyada ugu casirsan waxaa khasab ku noqotay Ankara inay bedel u hesho diyaaradaha F-35 oo hore ay ugu hanweyneed helistooda si aysan Giriiga iyo dawladaha kale ee loolanka la dhaxeeyo awood ahaan uga horumarin xagga difaaca hawada si qorshahaasi loo hirgeliyana waxaa muhiim noqotay ayay Turkigu leeyihiin in la helo bedelka diyaaradahan sidaasi awgeed Ankara oo ku guda jirta mashruuca loo yaqaano MMI oo jeedkiisu yahay helista diyaaradaha jiilka shanaad ee gudaha dalka lagu farsameeyay ayay haddana shirkadda Bayraktar oo ka hawlgasha soo saarista mashruucan kale oo lagu naqshadaynayo laguna horumarinayo jiilka lixaad ee diyaaradahan shirkaddan ayaa mashruuca hirgelintiisa ku riyoonaysay muddo aad u dheer ayadoona madaxa shirkadda oo lagu magacaabo Selçuk Bayraktar uu shaaca ka qaaday in uu 12 sano ku haminayeen hirgelinta mashruucan lagu horumarinayo diyaaradaha jiilka lixaad waxaanu intaasi ku daray kadib markii aan hirgelinay mashruuca daroonka Akins waxaan xoogga saarnay hirgelinta mashruuca Mouse Selçuk waxa uu sheegay in dawladaha caalamku ay haatan tartan ugu jiraan horumarinta diyaaradahooda dagaalka sidaasi awgeedna ay doonayaan dhankooda inay wax ka bedel ku sameeyaan diyaaradahooda mar walbana ay ahaadaan kuwa ugu horeeya caalamka waxa uu carabka ku adkeeyay in mashruucu gabi ahaantiisu yahay mid lagu samayn doono qalab maxalli ah oo gudaha ah waana si la mid ah daroonaha TB2 qorshaha waxa uu yahay in mashruucan marka la hirgeliyo tijaabo adag laga qaado si loo eego waxtarka iyo awoodaha dheeraadka ee ay leeyihiin diyaaradaha shilka janaad ayagoo si wadajir u fulin doona weerar elektaroonig ah inkasta oo ilaa haatan aan shaaca laga qaadin macluumaad dheeraad oo ku saabsan daroonka jiilka lixaad haddana muhiimadooda koobaad waxa ay tahay inay ahaadaan kuwa awood ahaan mar walba ka sarreeya diyaaradaha dagaalka cadowga xilligaasi dagaalka lagu jiro sidoo kale shirkadda Bayraktar ayaa si hordhaca u sheegtay in diyaaradan xawaaraheedu uu ka dheerayn doono xawaaraha codka waxa kale oo la soo bandhigi doonaa xuska 100 sanad guuradii aasaasidda Jamhuuriyadda Turkiga 2023 kana dhici doona Mouse ayaa awood ahaan u yeelan karta inay hal duulimaad ku xambaarto miisaan dhan 1.5 tan oo rasaas ah ayadoo hubka ku qaadi doonto gudaha diyaaradda iyo garbaheeda sidoo kalena waxa ay hawada sare gali kartaa xiriir dhan 12 kilomitir ayadoo waliba ku socota xawaare 900 kilomitir saacadii muddo 5 saacadood oo xiriir ah ayayna hawada ku duuli kartaa waxa kale oo ay awood u leedahay inay iska qarisa dhammaan wixii raadaar ah taasoo suuro gelinaysa inay lama filaan cadowga u weerarto xilli raadaaroodu aysan qaban karin diyaaradan balse dhanka ugu muhiimsan ee laga filanayo daroonaha waa inay awood u leedahay ka duulista iyo ku degista maraakiibta weerarka nooca loo yaqaano TCG Andolia
kuwaasoo Turkiga lagu farsameeyey. Diyaaradaha jiilka lixaad ayaa kaga duwan kuwa jiilka shanaad arrimo badan iyagoo meelo badan kaga horumarsan. Waxaa ka mid ah sida diyaaradaha jiilka lixaad awood ugu leeyihiin inay duulaan iyagoo aan marnamo u baahnayn duuliyahaga duulimaadkaas. Sidoo kale way ka xawaaro sarreeyaan jiilka shanaad, dhanka isqarinta raadaarkana way kaga horreeyaan. qiimo ahaan waa ay ka hooseeyaan kharashka ku baxaya farsamadooda. xilliga ay duulista ku jiraanna waxa ay isticmaalaan shidaal yar midka ay isticmaalaan diyaaradaha jiilka shanaad. arrimahan iyo kuwo kale oo badan waxa ay u sii dheer yihiin in leeyihiin dhammaan tilmaamaha iyo waxyaabaha ay kaga soocan yihiin jiilka shanaad. arrimaha sida weyn maanka loogu hayo waxaa ka mid ah inay qaab wadajira u duuli karaan ayagoo mar waliba xogta iyo macluumaadka si dhaqso ah isugu gudbinaya. teknolojiyadda ku xiran duulimaadka ayaana awood u leh inay sawirro ka qaadi karaan fagaaraha dagaalka iyo dhammaan xogaha cadowga ay hesho inay si dhaqso ah ugu gudbiso diyaaradaha kale. arrin kale waxa ay suuro gelinaysaa dowladda in muuqaal dhammaystiran ay ka hesho baaxadda iyo saaxadda dagaalka, sidoo kalena ay ku dejiso taatikadeeda iyo inay burburiyaan awoodaha difaaca cadowga iyagoo aan wax khasaare la sheegi kara dhankooda uusan ka soo gaarayn. jiilka lixaad waxaa kale oo ay diyaaradahani awood u leeyihiin la shaqaynta diyaaradaha kale ee waaweyn iyo hagidda nooca duulimaadyada ee droonka ismidaaminta loogu talagalay. waxa ay kaloo ka shaqayn kartaa dhammaan nidaamyada kale ee la xiriira dagaalka elektarooniga. Turkigu soo saaridda noocan cusub ee duulimaadka lixaad ee diyaaradaha waxa ay uga dhignaan doontaa guul weyn oo dhankooda ay gaareen haddii ay daaha ka rogaan sida ay qorsheynayaan sanadka 2023. ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada? ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka, higaada iyo culumta kale islaamka. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay.